iyadoo maalmihii ugu dambeeyay go'aan soo saareen xildhibaanada golaha guurtida Somaliland kana soo saaray khilaafkii soo kala dhexgalay dhawaanahan labada beelood ee walaalaha ay wada deegaanka Ballidiiriya Guulada ayaa maanta shir jaraa'id ay qabteen odayaashii waxgaradka beesha reer Benin waxa ay si wada jir u qaadaceen go'aankii ay soo saareen xildhibaanada golaha guurtida Somaliland taasoo ay ku sababeeyeen inuu ahaa mid xaq darro ah oo sharciga baalmarsan sidoo kale waxa ay shaaciyeen inay kalsoonidii kala noqdeen xisbul xaakimka kulmiye isla mar ahaantaana dhaliilay isbarkan waxa ay dusha kaga tuureen hukuumadda haatan talada dalka haysa ee uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed tilmaameen inuu yahay mid bulshada u horseeday musuqmaasuq iyo maamul xumo waa siday hadalka u dhigeen iyadoo arrimahaasi ay ka hadlayaan odayaashan iyo waxgaradkani waxa hadaladoodii ka mid ahaa oo go'aan beesha u ah waxaan ku farxay in xusbigii kulmiyeena 8 sanadood xambaarsanay arrinaa farxad gelinayni baan halkan kaga dhawaaqaynaa naga dhamqa isagoo sababta ay tahay inaan la xukumay wax aan distoorka iyo qarannimada iyo dowladnimada midna aanu jidaynaynin lagu xukumay xukun baadil waxaanu miiska saaraynaa maanta kalsoonidii aanu siinay xusbiga kulmiye 8 sanadood aanu xambaarsanay وأنا بدنا ما تهي مرخاتك هذا. وأنا كلامنا قرر. حسبك الكلية كسوري دي وأنا كلامنا قرر. وما ينبغي أريدنا وحكم مسؤولة أو سبب تلاهي الحكومة ما تكتب. يلا أقول الآن وحي دولة كذا يسيبلغا وحاله قفك قضاء مالها قبيلك قضاء مالها ومدو كدحية. دولة waxay kidaysay balliga lagu dhinto maanta ninkii qoday inuu ku qaanoobay balli kasta oo qodan waxa ay dawladdu banaynaysaa in ay tiraahdo waxa la reerkiina la qabsado oo la yiraahdo balliga bari baa tasagaga daatay warax bay abuurtay dawladdu balliyada lama kala laha balli reerleeyahay ma jiro ummadu waa isku mid daaqa waa iskaga mid go'aan ka yar waxa weeye inaan xusbiga kulmiye ka baxay ay ka yar maqsuulaya marka laba gabay oo yar oo gaaban ay halka tiriya midna nabadgelyo ku saabsan yahay midna xukuumadda ku saabsan yahay in cadaaladdu durugtay caawinaya in cadaaladdu durugtay ayaan caawinaya abdi oo daliil gabay aan la igu tawgalay dambiga iska dhowr baan lahaa inta uu maray hadda waxaan damqanayaa markay dawladda maanta deegaan qalaab ku madan dawladnimada deegaan qalaad ayaa ku madan dawladnimadii طفلية هذا يسوق لدوما كليتاي دمين تلاهم دعو فليتا فقالت لي حبلوه من الدربانية مشحط دمين تلاهم دعو فليتا فقالت لي حبلوه من الدربانية مشحط كل ذلك تم قراتي هذا كلام يود باتي طير تلقوه يسافر في المنطقة طير تلقوه يسافر في المنطقة طول من يحمق وقراودي بدالي طول عليه السوداني الذي نور كلام دوب عادية السودانية التي نور كطالعة دو حتى الحويدنا اللي يوضوغا تماشات كمان درسوبة اللي يقدعوه فرات كي يتبات السبسين قالين تجمع نمان دم عقوام بانشين توقينا صح تبشر كي مقالية مسكين لقد عليه نرجع هدودك لهدو تدانولي للثلاثة الأربع بدأ دين نفسوكي قال باندر كودي حديث دي بقول الله بين مدحوينة داقوها يدوف لنوتري مدحوينة داقوها waxaan ugu horeysaa xukuumadda iyo guurtidii maxay tahay waan ka gaadhay ugu dambeeyay kadib halkan aan u soo jeedinayaa sida uu dadku uga xun yahay bulshadu ay uga xun tahay dhibaatadii iyo go'aamadii iskhilaafsanaa ee iska dabaymanayay ee xukuumadda iyo guurtida ka yimid kuwaasoo aan waafaqsanayn sunnaha dowladnimo iyo xalinta mushaakilaadka khilaafaadka bulshada waxaan u aragnaa go'aamadii faraha badnaa ee kay iska dabaymanayay ee iskhilaafsanaa ee isburinayay mid aan waafaqsanayn nabadgelyada bulshada deegaanka waa midaan deegaanka u danaynayn shabakada caalamiga ah magaalada Burco